kusoo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka ee fiidnimo Afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin hayo waxa kamid ah guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay xilliga la qabanayo tartanka xisbiyada Soomaaliland iyo waliba doorashada madaxtooyada xanibaad saaran magaalada Baydhabo oo shabaab ayaa albaabada ka xirtay sicir bararkiina cirka ayuu galay Baydhabo maanta ku todoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin shabaab xirtay wadooyinka meel la galay malahan raashin malahan kiilada sokorta $2 la gadaaya maxkamad Baydhabo lagu soo taagay dad la sheegay inay garsoor u doonteen maxkamadaha al-shabaab qodobada aad ku xusan qiraalna way yihiin waa maxkamad horteeda ka qirteen cidiidana maahan waxaan codsanaynaa maxkamad sharaf leh ka codsanaynaa inay ku xukunto xukun waafaqsan shariicada islaamka gaadiidleyda ku safartay galmudug oo muddo badan xayirnaa kadib markii canshuur lagu soo rogay oo hadda iyaga laga cabanayo ciidan booliska ka tirsan oo mishaar la'aan ay haysato khilaaf ka dhex taagan iyo buuq golaha baarlamaanka ee Soomaaliya dalka Kenya oo lagu baaqay in mudaharaadyadu ay bilaaban doonaan maalmaha Arbacada Khamiista iyo Jimcaha soo socda wahagaag aan ku bilaabay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in doorashooyinka Soomaaliland la qaban doono 28 December 2023 gaar ahaan waa doorashooyinka xisbiyada tan madaxweynahana la qaban doono November 13 sanadka 2024 arrimahan oo dhan khilaaf baa ka taagnaa muddo ayaana la isku hayay xisbiyada mucaaradku ilaa hadda arrinkan kama aysan hadlin wahagaag xanibaad ayaa magaalada Baydhabo saaran noloshiina way qaaliyowday shabaab ayaa albaab walba oo gaadiidka ay ka galaan magaalada Baydhabo ka xanibay waxaan hadda lagu soo warramayaa noloshii dadweynaha iyo beecmishtarkiiba inuu qaaliyoobay xildhibaanada laga soo doorto Baydhabo ayaa ka warramaya dhibaatadan shacabka magaalada ay la rafaadsan yihiin Baydhabo maanta ku todoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin shabaab xirtay wadooyinka meel la galay malahan raashin malahan kiilada sokorta $2 la gadaaya litirka shidaalkana $3 la gadaaya laakiin taas waxay u taalaa dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ciidamo way joogan oo loo baahnaa inay dadku u adeegaan shacabku ay u adeegaan waxa iyaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidan Soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha kala gedisan ee dawladda ra'iisul wasaare iyo gudoomiyaha baarlamaanka uu ku jiro si degdeg ah in wax looga qabto arrinkaas sababtoo si idinka ogtihiin Baydhabo waxa ka jiro macluul badan ka jirto abaaro badan soo noqnoqday fatahaado badan ka dhacay ayadoo saas ay tahay go'doon hadii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogan ma ku noolaan karaan deegaankaas marka wahagaag wararka Baydhabo inta aanan ka bixin maxkamadda militariga ayaa waxa la soo taagay dad la sheegay inay garsoor u doonteen maxkamadaha al-shabaab waxaana dadkan lagu eedeynayaa inay iska indhatireen amarkii dawladda ee ahaa inaan shabaab maxkamadahooda la aadi karin dadkan waxa kamid ah nin oday ah oo sheegay inuu dhiikar qabo una xanuunsan yahay maadaama arintan oo mas'uuliyiinta ku batay inaan dheegno ونون ميلسنا قرني محكمة الشرف تلمك وعدسدانها بعد ما لانجرن أها النفتي وقالنا بيكر يسكرنا قبل بكقبة ما عدسدايها يعني محكمة الشرف تلا حرية عن النسيد أي تهي اللي ديديها بدولة وحي سمينس اللي ديديها ماشي بتسني مركز سيوة الجريان أصو إيدين إيدا سنة قضب أدك وحسن قرالنا ويهين ومحكمة هورتها كي قرتين cidiidana maahan waxaan codsanaynaa maxkamad sharaf leh ka codsanaynaa inay ku xukunto xukun waafaqsan shariicada islaamka wahagaag daqiiqadaha wararka baahinteeni fiidnimo ayaan weli bartanka kaga jirnaa ganacsatada gaadiidleyda oo muddaba ku xayirnaa koontaroolada galmudug kadib markii canshuur lagu soo rogay ayaa hadda dadka deegaanka ay qaati billaahi ka taagan yihiin waa sheeko la yaab leh waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka cabanaya darawaliinta iyo taambooyada baabuurtan kaxeeya oo muddo badan dul saarnaa dad badan oo masaakiin ah iyo gaadiid ayaa dhooban annaguna waa ku dhibaatownay ayaguna way dhibaatoobeen wax sahaya ma wadan annaguna waan xamili weynay waxaan ka codsanaynaa in loo fududeeyo oo dadka iyo gaadiidka la sii daayo deegaanka aad bay maaragtay ay dhibaato ugu tahay marka waxaan codsanaynaa
maamulka sharafta leh galmudug annagoo odayaashii deegaanka iyo culimaadudiinkii dadka in loo fududeeyo nala ka dulqaado. bismillaahi alxamdulilaahi sidii culummadu u sheegtay waxaan nahay waa dadka deegaanka laasabirin waxaan dowladda galmudug ka codsanaynaa oo madaxweynuhu u sarreeyo in dadkaas musaafirka ah oo gaadiidkaas dadka isku dhibaataysan in maaragtay nalaga dulqaado. annagu waxaan nahay dadkii deegaanka awooddeed ma lihin waa nagu musaafir waa u adkaysa weynay ayaguna maaragta meesha waa ku dhibaataysan yihiin sahayday waa ka dhammaatay ilaa 10 beri ayay meeshaas dhooban yihiin qorraxda oo qarqaryada ah intaas ayaan dawladda ka codsanaynaa. wahagaag shalay waxaan sii daynay qaar ka mid ah booliska beledweyne oo mishaar la'aan ka cabanaya waa kuwa kale oo sheegaya in lacagihii mishaarkii taliska booliska ay ka qaadan jireen ay ilaa iyo hadda la yihiin. ciidan booliska Hirshabeelle oo ka cabanayay mishaarkii ama gurnadii ciidanka oo adiga muddo hadda bishii afraad hadda galaysa ka maqan oo runtii taas ay tahay macnaheedu mid anaga ugu kooban aysan ahayn oo dhammaan dawlad goboleedyada booliska ka howlgalo dhan ee ka wada maqan muxuu ahaa farsamo guud oo u maqan waayo wax anaga hadda gaar dawlad goboleed ahaan nooga maqan ma aha. ayadana waxaan kala hadalnay saaka ciidankii waxaan isla garanay in xaaladda ay dejiyaan way adag tahay in runtii in askari oo booliisa oo dalkiisu habeenii maalin u shaqaynaya xuquuqdii haddana ay ka maqan tahay waa runtii wax adag waaye. muxuu ahaa waxaan isla qaadanay in shir hadda maalmaha soo socdo xamarka dhici doono aniga aan ka qaybgeli doono oo dhammaan dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ay isugu imaanayaan oo looga hadlayo arrimaha booliska gaar ahaan gurnada maqan ama mishaaraadka ciidanka oo dhammaan dawlad goboleedyada ka maqan. ayadana waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay bishan soo gabagabowdo oo xuquuqdoodii ciidan ay helaan bishan dhammaadkeeda haddii Ilaahay yiraahdo. wahagaag dalka Kenya warbixin ku saabsan iyo mudaharaadyada la qorsheynayo maalmaha soo socda ayaad maqli doontaan balse haatan aan wararkii caalamka aadno. wadamada midowga Yurub iyo dalka Tunisia ayaa ku heshiiyay in wax weyn laga qabto isu socodka dadka muhaajiriinta ah ee Yurub galaya. faafahinta warkaasi Shamis Xaaji Xasan Haarun ayaa inoo haysa. midowga Yurub ayaa waxa uu heshiis looga hortagayo dadka tahriibayaasha ah la saxiixday dalka Tunisia. kulan aan caadi ahayn oo dhex maray labada mas'uul ee kala ah madaxweynaha Tunisia iyo madaxweynaha midowga Yurub ayaa arrintaasi inteeda badan lagu gorfeeyay. Tunisia ayaa leh marinbiyood jid u ah soo galootiga doonaya inay u gudbaan qaaradda Yurub waana mid keentay in loo baahdo kulankan aan caadiga ahayn ee ay mas'uuliyiintu isugu yimaadeen. ra'iisul wasaaraha Holland iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa iyaguna shirka ka qayb galay iyagoo qayb ka ahaa heshiiskan. waxaa jiray in kulan gaar ah uu dhex maray madaxweynaha Tunisia iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga kaas oo dhex maray Axadii toddobaadkan. sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa sii kordhayay dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya dhulalka saxaraha dhaca ee Afrika iyo dalal kale kuwaas oo doonaya inay galaan qaaradda Yurub si ay halkaasi uga sii gudbaan qaar kalena ay nolol isla halkaasi uga samaystaan. mas'uuliyiinta Tunisia ayaa sheegay inay toddobaadkan gudihiisa ay gacanta ku dhigeen dooni ay la socdeen 50 ruux oo muhaajiriin ah kuwaas oo ka soo socdaalay sida ay sheegeen Afrikada saxaraha ka hooseysa. doonidan ay ku jirtay xaalad khatar ah ayay sheegeen inay soo badbaadiyeen ciidamada badda ee Tunisia. sanad kasta ayaa waxaa la diiwaan geliyaa kumanaan muhaajiriin ah kuwaas oo doonyaha ay sitaan la sheego in baddu ay liqdo halka qaar kalena la soo badbaadiyo walow aysan tusaale u noqon taas oo kuwa kale ay dhacdo in naftooda ay ku biimeeyaan badda khatarta badan. maasani Shamis. haatanna dalka Kenya mucaaradka Kenya ayaa si rasmi ah maanta ugu dhawaaqay in Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha oo hal maalin inaga xigto mudaharaadka ay dhigi doonaan. arrinkan aad baa loo sugayay
kumanaan kenyaan ah ayaa noloshu ay ciriiri ku tahay waxaana laga cabanayaa dowladda oo wax ka qaban la maciishadan cirka sii gelaysa dowladda waxay sheegtay in qof walba oo si sharci darro ah banaanbaxyadan ugu soo baxo in wax laga qaban doono arrimahan oo dhan muddo dhowr bilood ah ayaa la isku hayay mucaaradka maalmahanba way ay hadalhayeen bal maanta duhurnimadii ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in 3 maalmood oo xiriir ah dibadbax la dhigi doono inaad jacayl u muujinno oon u mahadcelinno dadkiina soo garab qabtay ee na caawiya si aan horumar u gaarno waa ay fududahay adigoo isticmaalaya World Remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaanaad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga way fududahay soo maaha ma tirtiro abaalkaaga tusmadiyo wanaagan barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka caawa intaa haynoo joogo cabdifataax cabdullaah soo saaray maxamed elfis wuu farsameeyey aniguna cabdirasaaq catoosh baan ahay idinkana waad ku mahadsan tihiin daawashadiinna tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo faa'iidooyinka adeegga e-pesa send money dirista lacagaha withdraw money bixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka e-pesa pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka e-pesa global xawilaadaha e-pesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga e-pesa goor kasta iyo goob kasta